مجتبى علي خميني كنتني اللي حجر كل شيء إسلام مقالدي أبيه كيمد مشهد وأنا ويلكي سلبات waxuu ka soo jeedaa qoys culimo shiica 36 sanana ku dakeynaya talada Iran meydka aabihii wali xabaasha lama dhigin isna wuu dhaxlay oo wuxuu noqonayaa hogaamiyaha ugu sareeya jamhuuriyadda kacaanka Iran waa ayatullaahigii saddexaad tacliinta si la mid ah aabihiis kama leexan dariiqaas oo wuxuu ka soo aflaxay goobaha waxbarashada ee khum macallimiin waxa ugu soo noqday ayatullaahi maxamed taqi masbaa iyo ayatullaahi lutfaalah saafi ما قارن درجة آية الله يقران آية الله منه وحو حجستي حجاج الإسلام مجتمع لما الديوان قلين حل دولة أو رسمية لكن وحو النقضي مد آدو سامين بدن قدها النظام كأبيه تلدي سهي سبب لحريرته إنه هاقف أن تلديسه مد كلا دول صاري سيدا الديوان قشن وحو كشقي حافظك وهد اللو ريقيو أبيه اللي قدلي وقران يالوك كستا أو يوحكولو من كران سنة بدن أيوها قف لو أركو أود أو ليهي خميني إنه وحكا داعين كرتو isagoo askari ayuu furimaha dagaalka tagay wuxuu ka qayb galay dagaalka Ciraaq iyo Iran oo ay Tehran u arkaysay mid ay xaq u lahayd intii uu noolaa dhaqyada siyaasiga ayuu si saacsan u taageeray waxa kamid ahaa Israaxiddin Maxamuud Axmed Najaad doorashooyinkii 2005 oo ku soo baxay marka ayuuna muuqaalkiisu soo kacay saameyntii sare la arkay waxa uu ku doortay inuu saameyn ku leeyahay awood adag galaangal iyo nacaybka reer galbeedka inuu saameyn leeyahay waa la isku raacsan yahay laakiin taasi waxay taabanaysaa aag xasaasi oo xilligan la kulmaya weerar toos ah oo uga imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil si gaar ah ayuu ugu xiran yahay olana macaamilay dhammaan qaybaha ciidamada dhalada kacanka oo ah gacanta wax u geysa hoggaanka maanta loo doortay si gaar ah ayuu ugu laban yahay hoggaan hoosaadka ciidanka loo yaqaan Basiij oo kuwa gaar u tababaran marnaba hada lama gasho inuu yahay amiirka u taliya khaatimul anbiya maalmaha adag si lamida waxa uu kale oo saameyn ku leeyahay laamaha amniga guud maadaama saaxiibadii uu kala qayb galay dagaalka Iran iyo Ciraaq ay noqdeen taliyaal muhiim oo gacanta ku haya hay'adaha sirdoonka iyo ciidamada wuxuu noqday nin dhaqaaqiisu sareeyo marka waliba xagga ciidamada laga eegayo inkastoo uusan muuqan falanqayaal badan waxay ku tilmaamaan nin ka hoos shaqeeya iyo mid ka mid ah dadka ugu awoodda badnaa gudaha nidaamkii uu aabihii hogaaminayay waa gacan adag yahay mujtaba horay waxa loogu eedeeyay inuu door ku lahaa xakamaynta iyo dilwareedyo loo geystay dad Iiraaniyiin oo nidaamka aabihii diiday gaar ahaan barnaamijyadii doorashadii 2009 ee Iran iyo taageeradii ciidamada ee Basiij ee ka hortagay mucaaradka ayuu qayb lixaad la ka ciyaaray wuxuu kaloo ku ugu dambeeyay ee dhawaan dhacal rumaysan yahay inuu xakamayntooda gacan ka geystay kumanaan qof ayaana la aaminsan yahay amarada iyo gacantiisu inay qayb ka ahaayeen dilkeeda warbaahinta gudaha Iran gaar ahaan mucaaradku waxay ugu yeertay gacantii wuxuu goyn jirtay Ali Khamenei hadda wuxuu helay codadka golaha khubarada Iran wuxuu noqonayaa bedelka aabihii Ali Khamenei oo xilka hogaamiyaha sare si kastaba looga dilay falanqayaashu waxay sheegayaan in hoggaankiisu uu wajahayo caqabado waaweyn oo siyaasadeed iyo diimeed oo aan sahlahayn ee dhaxal siyaasadeeda ayuu durba la kulmayaa kacaanka uu caynaanka u qabtay maanta dhalashadiisa 1979 wuxuu si cad uga soo horjeeday boqortooyo dhaxala boqorkii Shah wiilkiisii iyo dhaxalkii reer Shahba waa laga banaan baxay waxayna dhashay in Khamenei saddexaad uu isagu maanta dhaxal yahay laakiin mujtama la doortay oo aabihii u dhaxlay waxay dhalin kartaa diidmo siyaasadeed oo ah gudaha kacaanka inta aan la aanin banaanka iyo rayidka noloshu ay ku adag tahay dagaalkana ku jira heerka diimeed iyo hirarkeedu waa sareeyaan mujtama Khamenei waxa nin wali loo yaqaan inuu yahay hujjaat al-islaam oo aan hayn darajo diimeed oo ka hooseysa tii laga doonayay ayatullah iyo grand ayatullah midna ma haysto dastuurka Iran ee kacaanku uu dhidbayna wuxuu sheegayaa in hogaamiyaha sare uu noqdo grand ayatullah oo heerka ugu sareeya ee madhabta shiicada taageeradiisa ciidanka ilaalada kacaanku mar waa boog marna waa baraare warbixinadu waxay sheegayaan ciidanka ilaalada kacaanku ay door weyn ku lahaayeen kor u qaadista saameyntiisa taas macnaheedu waa in awoodda siyaasadeed ee dalku ay sii xoogaysan karto dhinaca militariga u sii janjeerayso iyo hay'adaha ammaanka ee gacanta adag halkii ay ka ahaan lahayd mid culimada diinta dhinaceeda u janjeeraysa khatar siyaasadeed falanqayaashu waxay sheegayaan in dilalka iyo bartilmaameedyada lagu hayo taliyaasha ciidanka ilaalada kacaanku ay daciifin karaan taageeradiisa aaggan oo dhimashada saraakiil muhiim ahayd ayaa ka dhigi karta hogaamiye garab waayay oo ku beegmay marxalad xun xilli adag iyo waqti uu taagan yahay jahawreerka dagaalka culimada qaarkood wali waxay haystaan awood ay ku kala qaadi karaan xilka hogaamiyaha sare oo ay kala laaban karaan haddii khilaaf gudihii bato taas oo aan isaga wanaagsanayn waxyaabo lagu amaanay
ayaa jira si wadida xasiloonida nidaamka taageerayaashiisu waxay aaminsan yihiin in mujtamac uu si fiican u yaqaan nidaamka gudaha ee dawladda iyo hay'adaha ammaanka luqluqyada oo uu garanayana ay u sahli karto nidaamku inuu sii taagnaado tan waxay ka hortagi kartaa fowdo siyaasadeed kadib geeridii hogaamiyihii hore ee aabihiisa taageeradiisa ciidamadu waa awood inuu xiriir iyo taageero ka heli karo xilligan adag taliska ciidanka ilaalada kacaanka iyo daacadnimo wuxuu dhexdooda ku leeyahay darajayn way u wanaagsan tahay tan waxay siin kartaa awood degdeg oo ku xakameeyo xaaladda dalka oo jahawareed iyo dagaalba ku jirta mucaaradka ka soo horjeedana uu ka adkaan karaa khibrad qarsoon oo siyaasadeed inkastoo uu si rasmi ah xil dawladeed u haynin haddana waxa la rumaysan yahay inuu sanado badan ku lug lahaa go'aanada siyaasadeed ee gudaha Iiraan kuwa dibadda iyo go'aano kasta oo lala qaadanayo cid ka soo horjeeda Iiraan wuxuu ahaa qofka qarsoon ee awoodda leh dhalilaha ugu waaweyn marka laga tago inay ka mid tahay dhaxalkiisa siyaasadeed waxa kale oo wiilkan uu hadda bedelaya aabihi una noqon kara nidaamku inuu boqortooyo qarsoon isku bedelayo kasoko arrin kale oo u taagan waa sida uu la macaamilaya Mareykanka iyo Israa'iil labadaba ma jecla aabihiisna waxa uu eersaday gacantooda waa nin doonaya inuu aarsado oo aabihi u aaro siyaasadii uu ku taagnaa Ayatollah Ali Khamenei ayuu doonayaa inuu sii abqaalo oo dhinac uga laaban Khameneigan saddexaadi wuxuu hadda la kulmayaa wada cusub iyo waa cusub duniduna ma aha tii uu soo joogay Khamenei Ali Khamenei iyo isagaba waa dharaaro cusub oo dunidu si weyn isku bedelayso wadamada gobolka iyo reer galbeedku uma arkaan dooq wanaagsan waxay aaminsan yihiin inay tahay qud ka guur oo qanjow guur falanqayaasha qaarkood waxay sheegayaan awoodiisa ku tirsan ilaalada kacaanka oo lagu daray tan culimada diinta qaybtood ay ka dhigi karto inuu noqon karo mid ka mid ah xubnihii ugu gacanadka ugu dhalinyaraa ee soo mara taliska jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan hadda wuxuu ka mid yahay dadka ay baadi goobaysa Israa'iil sababtoo cid kasta oo xilkan qabato uma arkaan Mareykanka iyo Tel Aviv dooq wanaagsan saacado ka hor ku dhawaaqidiisana wasiirka difaaca Israa'iil iyo Trump ayaa sidaas sheegay doorashadiisa xilligan xasilooni degdeg ah nidaamka gudihiisa way siin kartaa laakiin waxay furi kartaa khilaaf cusub oo culimada ciidamada iyo siyaasiyiinta gudaha Iiraan dadku way kacdoonsan yihiin isbedel ayna doonayaan ma jiri doonaa kacdoon gudaha ah oo ka hor yimaada qaar ka mid ah warbixinada durba la helaya waxay tilmaamayaan in kooxo mucaarada gaar ahaan kurdiyiinta ku sugan xuduudaha Ciraaq iyo Iiraan ay isku diyaarinayaan inay gudaha galaan warar ay soo xigteen Reuters iyo Wall Street Journalna waxay sheegeen in Washington ay ka fiirsanayso taageero dhameystiran oo kooxaha la siiyo daciifnimada hoggaanka sare kadib dilka ama weerarada beegsiga cadaadiska dhaqaale ee gudaha ka jira iyo kooxo hubeysan oo xuduudaha ku suganima waxay ninkan dhaxal siinaysaa wadan ku jira xaalad ka kan oo sida uu isugu soo laabtay waqti dheer u baahan yahay dawladda Iiraan wali waxay haysataa ciidan aad u xoog badan khibrad dheer ayay u leedahay xakamaynta kacdoonada gudaha laga soo bilaabo dhacdooyinkii 2009 2022 ilaa 2026 ugu dambeeyay kacdoon waa suuragal laakiin mid fudud ma aha nidaamka Iiraan wuxuu ku kooban yahay saddex awoodood oo waaweyn waa culimada diinta ciidanka ilaalada kacaanka ciidanka amniga hay'adaha siyaasadda iyo dawladda khilaaf wuu dhici karaa culimada qaarkoodna haddii ay diidaan hogaaminta dhaxalka ciidamaduna waa kuwa awood badan dastuurka Iiraan wuxuu siinayaa golahan inay awood ka qaadi karaan hogaamiyaha haddii loo baahdo taas macnaheedu waa nidaamku si buuxda u burburi maayo si degdeg ah balse waxa dhici kara khilaaf awoodeed oo gudaha